inta badan maareynta ama daweynta sanboorka ama sangaroorka ayaa ah ta ugu wararka badan marka xaaladdan ay qofka la soo daristo, balse khubarada caafimaadka ayaa daafuray xalka ugu fudud ee loo joojin karo dhiigga badan ee markaa sanka ka soo baxaya. cilmi baaristan ayaa hubantay qofka ka caawin doonta inuu joojiyo ama uu xakameeyo dhiigga ka soo baxaya sidanu sheegnay sanka qofka, waxaana qofka ka caawinaysaa inuu isdaweeyo isagoo guriga jooga islamarkaana aan booqan goobaha caafimaadka ama daryeelka caafimaadka. tallaabada ugu horeysa ee lagu joojinayo dhiigbaxa sanka ayaa ah in cadaadis la saaro sanka labadiisa dhinac, taasoo qofku adeegsanayo inuu caarada sanka ku qabto labadiisa farood islamarkaana uu sare u qaado muddo u dhaxaysa 15 daqiiqo ilaa 20. tan waxaa la hubaa in hoos u dhigayso dhiigga ka soo baxaya sanka islamarkaana xal u noqonayso dhiigbaxa sanka. intaas ayaan kusoo koobaya mawduuceena ku saabsanaa siyaabaha loo daweeyo islamarkaana loo xaliyo sangaroorka ama dhiigga sanka. tan iyo kula dambe oo ku mahadsantiin dhegeysigiina. nabadgelyo.